بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي ذا قيمها له أن برتان كوضا الصعنون كوضا جان قادنو مركلة وولاشين شكر دقن أودين ودا برنامج عصب. أصحابي انتيني هوري إن لجوكتي برتان أن كوضا الصعنو آدي ذكوكم هاد علنا انت دنبون وصوب بيري دونتنا وحان الله هاي كسو دواذا ولا إذن جعل iyo sacabo furan insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan anuun idin sii dahdahinin inaan u gudo galo barnaamijka aan idin kugu tala galay war degdeg ah waa maxay degdeg sideedaba caalamka waa ka jira degdeg waa ka jira maxaa la dhihi jiray carabtu maxay dhihi jirtay khabar caajil waa jira هذا ورك دق مر والبا والله استعماله محا دق محانسة دق هين ولي وحن برنامج كان ودبا السعودة سوشيال ميديا يو سيدا خلطان او اي سومالي دو فهمتي واستعماشو وحيالا دو سوشيال ميديا يدي باتوين كسومالي دا معناه اي محا السوشيال ميديا وبضيو كالوغس كسو قدبون هذا إلا قفل بابا قرات كيسة يفهم كيسة ايو وحوالبا او مركز قصة بيرانو لشيسة ايو كماريا annaga Soomaali ahaan maxaan degdeg u naqaanaa maxaa war degdeg ah maxaase news ama war caadi ah oo aan marnana degdeg lagu soo qori karin waxaad arkaysaa bara badan oo social media Soomaalidu ay ku leedahay haba ugu sii badnaadaan YouTube ama ha ahaadeen baraha kale ee Soomaalidu isticmaasho sida Facebook waxaad arkaysaa qof dhan oo aan دق ما هنا ولقيس بهذا العادية صودقن ما أنتو برنامج قبنايا ور دق أو هبلو كسابسن بريو قبنايا ور دق بري دنبو قبنايا ور دق سنة لابو سدح دق وحانا هين بمشيغو مالين كستا ور دق ما دعي كرا واحد دق أو خبر عاجل مالين والبا ور من نغون كرا أو مسو تبين كرتا مساء وحنا والنيوز أما ور عادي أخبار عادي وحنا دق وحكو دعي محا دق نقون كرا هل كاسا قرح كدعي انتا صور روحا كو دمتي ودق ور دق وصح كاس ور دق وايو وحي مركاس دعي او دباتا وإنا تسوقد بسوا ور دق لكن مالين كستور دق ما كين كرتد جنال دن او دق افرن انتو كجرا عالمك او aan Soomaalida ahayn bar dhan oo qof uu leeyahay oo social media uu ku leeyahay oo deg maahine wax normal ba aan la soo gelinin maxaa degdegay maxaa degdeg noqon karin saxaafada dad badan aa wada bartay anigu saxaafada waa ka soo shaqeeyay dad iga aqoon badanna way jiraan dad ila midana way jiraan dad iga liitana way jiraan dadaan wili wax uga bilawnayna waa jiraan dhagaha un ka maqlay maxaa degdeg maxaasin war caadi Soomaaliya wax badan isaga keen qasan khaasatan social media wax badan ayuu maaragtay annaga aan aad uga fahamsaneen war kasta news kasta akhbaar kasta oo maanta rabto inaad soo tabisaahi degdeg ma noqon karo laakiin dhibaato meel ka dhacdo degdega madaxweyne dalkiisa oo diyaarado la dhacday waa khabar caajil waa war degdeg ya nin taajir oo caalamka dhan caan ka ama dalka markaas adigu aad joogto caan ka oo dhintay yes oo markaas la yiri baabuur la gadoomo ku dhintay waliba accident ku dhintay waa degdeg waa war degdeg waa dhigi kartaa war degdeg oo hadda soo dhacay wuxuu sheegay saan لكن everything دق معها واحد كست دق ما نقون كرو هذا normal كشيء كنا أما أخبار كمال انتاس محي هذا الجيل كشيء كنا محي هذا ده دونا محي هذا مدحوين هبل باقود بأخرية وديه دونا محي نجر مروضة كوات أيام الهبلاية بوقتي وديه دونا محي ده يجر ورك عاد وضعي أي كو حاسو كلا أي وحلا مذي أيهين
degdeg inaad ciwaan ka dhigatood ku soo qortaa waa waxaan meesha ku jirin waayo ma dhici karto qof dhan ee barnaamijyo ka shaqeeya ee maalin walba iyo saacad walba war degdega soo sheega waxna waa maxaa newska magaca akhbaar ama news ama war loo bixiye haddii war kastoo tashaabo uu degdeg yahay maxaa degdeg un loo dhihi waa ama war degdeg ah un loo dhihi waa newsku waa wixii maalintaas la hadal hayo wixii maalintaas jira wixii maalintaas maxay ahayd dadku qabtay wixii dalkaas ka dhacay wixii dalal kale ka dhacay wixii caalamka ka dhacay waa akhbaarka maalintaas maxaa cusub waaye waxa maalintaas cusub oo dhani degdeg ma noqon karaan marka dhibaatooyinka annaga social mediahu maxay ahayd aad dareemayso qofku markuu yahay qof wax ka fahmi kara maxaa la dhihi jiray saxaafadda waxa maxay ahayd dhibaatada nagu ah annaga Soomaali ahaan oo social media nagu soo saacidiyay ayay kamid tahay qof dhan ee channel leh social media ku leh noocu doona ha ahaado oo maalin kasta iyo saacad kasta qaar xataa maaragtay maalintii 4 jeer 5 jeer 6 jeer warar soo geliya yaas qofku news haduu ka shaqeeyo waa soo gelin karaa wixii cusub oo soo gelin karaa wixii dhacay uu soo gelin karaa wixii dalku markaas jooga ka dhacay iyo caalamka wixii ka dhacay uu soo gelin karaa wax walba waadixin karaa say yihiin u sheegi karaa laakiin inuu war kastuu keenaba degdeg noqdaa macquul maaha mana aha qaab saxaafadeed oo sax ma aha wixii degdega waa degdeg wixii maaragtay immediately markaas dhaca wax maaragtay laga naxo ah ama wax maaragtay war la sugaayo oo soo baxay ah ama for example waa la dhihi karaa degdeg war degdega oo hadda na soo gaaraasaas sheegaya degdeg qaraxa halkaas ka dhacay degdeg madaxweyne hebelaa dhintay macnaa shil baabuur ku dhintay ama shil diyaaradeed ku dhintay laakiin madaxweyne hebel oo xanuunsanaa oo maalmahan isbitaal jiifay aad ka sheekaynaysaa ma dhimanin wax balaaya ma jirto degdeg madaxweyne hebel oo baryahanba isbitaal jiifay maaha degdeg maaha waa la sii ogaa inuu isbitaal jiifay maaha war degdeg noqon kara maaha ya marwada koowaad oo maanta khudbad jeedisay oo waxaas ka hadashay degdeg ma noqon karto ya waa news waa akhbaar laakiin degdeg waxa degdeg la yiraahdo iyo warka caadiga ah waa kala duwan yihiin waxna waa degdeg asoo war ah waxna waa news caadi ah ama war caadi ah oo maanta iyo wixii dunida ku soo kordhay iyo wixii dalka joogto markaas adiga aad specifically aad rabto inaad ka hadasho ku soo kordhay ayaad sheegaysaa waa dhacdooyinka joogtada ah ee maalin walba dhaca waagi baryaba waxba cusub wax kasto cusubna degdeg ma noqdaan marka waxay ka mid tahay asxaabay oo aniga waxa iga fajiciye ay ka mid tahay qof dhan ee shaqaynaya dad dhan qof maxaan u leeyahay dad dhan oo tiro badan oo shaqaynaya oo baraha bulshada barakule aan mid iyo laba ahayn ayaa everyday maalin kaste iyo saacad kaste war degdega ma ahayna wax kale aan soo qorin oo degdegan inta u yaala maalin kasta asaga degdega asaga la u kaydsan oo meel ugu safan oo saacadan warka uu soo geliyo degdeg ka dhigayso oo hadhow saacad kadib wuxuu soo galshay degdeg ka dhigayso oo biri wuxuu soo galshay degdeg ka dhigayso cawada wuxuu keenay degdeg ka dhigayso oo xagee yaalaadi waxaas degdeg waxaas wada degdeg adduunyada kama jiraanba waxaas wada degdeg waxaas wada degdeg intuu ka soo helo waaye marka asxaabay wax badan sidaan barnaamijkii hore uga sheekeeyay wax badan oo waali ah oo Soomaalidu ay khalad ka fahamtay ayaa social media dhex yaacaya wax badan oo Soomaalidu khalad ka fahamtay ayaa social media dhex yaacaya oo waxyaabaha aniga waa badan yihiin laakiin waxyaabaha aniga iga yaabiye ayaan rabaa inaan ka hadlo oo midba mar aan soo qaato insha Allah ta'ala marka barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa sida title-ka ku soo aragteen war degdeg ah maxaa lagu raadinaa marka degdegaas la soo qoro Soomaalidu waa hadal jeceshaa maxaa lagu raadinaa waxaa lagu raadinaa bal waxaan soo kordho degdeg ah aad aragtid qof walba inuu dhaho oo fiirsado ujeedo kala ma laha degdegan joogtada ah ujeedo kala ma laha war qof yahow qof weyna Ilaahay ka dhigay degdegan ama lagugu naca maalin kasta wax degdeg uma jiraan degdeg ama lagugu nacay waxaan ama adiga hadhow shaqadaada iyo shakhsiyadaada waxyeelan qof ka fikiraya ma jiro
qof walba wuxuu ku xisaabtamayaa degdeg haddoo meeshaas kusoo qoro immediately qof walba inuu keli ku siinayo oo soomaaliyadu arko kelig taasuu ku xisaabtamaya ee kama xisaabtamaya aayihiisa dambe iyo qofnimadiisa iyo sharaftiisa iyo shaqadiisa haybadda shaqadiisa kama xisaabtamaayo ee wuxuu ku xisaabtamayaa hala fiirsado un soomaaliyaan nahaye warbaa ugu on kullaan maqli jiree yaa waxa waaye degdeg anagana waana laga shidaa barkee hadalkaasaan ba rabnaa maho warkaasaan ba jecelnaabo wax war noo sheego aadaan u jecelnahay marka waxa waaye degdeg haddii la yidhaha qof walba kusoo yaacay waaye macnaheedu kusoo yaacay waaye degdeg haddaa maqasho markaa saxaabey qayb kale ayaa intaas noogu eg oo ka mid ah qaybihii aan uga hadlayay dhibaatooyinka soomaalida iyo social mediaha dhibaatooyinka ayaan gooni u dhihin laakiin soomaalida iyo social mediaha oo maxay ahaatay waxyaabaha soomaalida ay u badan yihiin annaga soomaaliya iska nahay maanta haddii inta hadda ka hora waxaa arki jiray farmashiyaal ayaan lagu daatay moogtahay farmashiya inta laga furay soomaalida dhan farmashiya furatay yaa waxaan nahay dad isku dayda waxaan nahay dad maanta aniga waxaan sameeyo aan dhihin dadkii iga horreeyay waxay sameeyeen oo iga aqoon badnaa ayaan inteennii dambana ku dayanaynaa aniga waxaan sameeyo qolaa soo tiigsanaysa oo igu dayanaysa mana keenaysa fikir kaleeto oo ka duwan fikirkii aan anigu keenay ama qofkii iga horreeyay fikirkuu keenay anigu kii mid ka duwan ma keenayo kii lan daba taagnaanaya tabakaaya ninka inta ka furta kulli tabakaaya la furanaya yaa farmashiyo ayaana lagu daatay soomaaliya waa ogeyn farmashiyaa qof furanaya kulli waa la iska soo wada horjeeday inta waa farmashiya inta ka furan midaa garabka ku haya midaa garabka kale ku haya midaa kasoo horjeedo midaa kalaa kasoo horjeedo bal adigu bal kaala sheeg maa waxyaabo kala duwan la iibiyo oo qof walbaba fikir kale la yimaado marka haddana social mediayaan kusoo wada daadanay soomaaliyaan nahay social media waxna loogaga sheego waa kusoo daadanay waxyaabo badan oo isku wada noocana waa kusoo daadanay yaa degdeg taasaa ka mida maanta aan soo qaaday marka ilaahay salka dhulka ha noo dhigo allahana dejiyo degdeg joogto ahna hadal ma noqonayo shaqana ma noqonayo channel la fiirsan karana ma noqonaye bal walaalayaalow ha la xisaabtamo maskaxdu ha shaqayso oo insha allah kuwa si dhan kasan uga faa'iidaysto social media allah naga dhigo faa'iidooyin badan uu leeyahay iyo qaab badan looga faa'iidaysan karo kuwa dhan kasan uga faa'iidaysta oo aan meelaha ugu xunxun iyo meelaha kasii xunxun aan raadinin oo in lagu caytamo iyo in lagu cilaaqtamo iyo in wax la isaga sheego iyo in dadkii adiga ku fiirsanayay ee fiirsadayaashaada ahaa ee kugu taxnaa oo xushmadda kaa mudnaa la yidhaahdo marna loo soo bandhigo waxyaabaha hoose ee qoyskaaga iyo noloshaada ku jira marna la yidhahdo idinka ay cunteen sidaas si ka duwan kuwa social media ugu jira allah naga dhigo oo caqligoodu shaqeeyo oo waxa ay hadda qaladaadka aan hadda arkayno biidnillaahi kariim qofkan wax qaldin waxna ma saxe waan is sixi karnaaye dib isu qabto oo is saxa allah naga dhigo insha allahu tacaala halkaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii qaybtii labaad oo aan kaga hadlayay soomaalida iyo social mediaha warka degdega ah aan kaga hadlayay asxaabay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaadiinada ee baha ahaato korkiina nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu